السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرة بيتي مع ضوء برقدن العكتة بيلك عم كشقيو حنا دق مرة بيتي مع ضوء برقدن بيلك العكتة عم كشقيو حنا بعونها برره sababtoo markaa warqadeyda aan fiisho qaybta kore waxa ku qoran lacagtii aan ku shaqeeyay bishii oo dhan markaad sii raacday sii fiirisidna waxa arkaysaa miinisho badan oo sii galgalaya ugu dambeeyna lacag yar oo half lacagta aan ku shaqeeyay kamida oo koontada kugu soo dhacdo marka waxaan isweydiiyay maana igu xiran tahay oo ninkan booska aan u shaqeeyo ba maalintii garabeeshii iga sameeyay lacagtii half qaatay mise wax dadka ay la wada qabaan markaan baaray kadib waxa ay soo baxday in dadka ay la wada qabaan oo systemkan oo wadanka oo dhan qof walba uu shaqeeyo oo ku qasbeen marka waxaan rabnaa inaan ku mashquulno lacagta la gooyo maxay tahay iyo sababta loo gooyo lacagta qofka laga gooyo ee shaqeeyo waxa lagu maalgeliyaa baarlamaanka askarta caafimaadka isbitaalada ambulaansada jidadka eelaboorada iyo mushaarka ciidamada iyo mushaarka baarlamaanka lacagta qofka uu ku shaqeeyo bishii oo dhan waxa la isku yiraahdaa brutto marka cashuurta iyo waxyaabahan kale laga gooyeen waxa la yiraahdaa netto lacagta asaga si toos ah koontidiisa ugu soo dhacayso waxa la yiraahdaa netto tan kale oo cashuurta waxa ku jiraan waxa la isku yiraahdaa wadanka Jarmalka brutto meelaha kale runtii ay u taala laakiin waxaan ka hadlaynaa hadda systemka Jarmalka iyo qaabka maaragtay cashuuraadka maaragtay qofka lagu gooyo iyo percentiga qofka laga gooyo inta ay tahay waxaa jira qofka markuu shaqeeyo waxa laga gooyaa social farsi solidarity qofka waxa laga gooyaa lacag la yiraahdo solidarity kadib markii ay Jarmalka la wada isku biireen Jarmalka galbeedka wuxuu ballan qaaday inuu dhisi doono wadankii Jarmalka ahaa bariga oo markaas Ruushka haystay wuxuu soo rogay markaa cashuur cusub oo solidarity oo lacagta midnimada ah oo qof walba oo shaqeeyo ay ka gooyso 5% ilaa haddana lacagtaasi waa socotaa inkastoo ay xisbiyada qaar ay leeyihiin lacagtan hala jaro maadaama oo wadanka bariga Yurub oo hadda dhaqaalihiisii iyo dhismaha jidadkiisa aad baad u fiican yihiin qofka shaqeeya ayadana waxa kale laga gooyaa lacag la yiraahdo caymiska jirada lacagta caymiska jirada qofka waxa laga gooyaa 7.3% taasoo ma aragtay qofka markuu xanuunsado uu soo wax lacag uu bixineen waxa aadaysaa dhakhtarka asagoo ma aragtay baaritaan ku sameeynaayo adoon wax lacag bixineen maxaa yeelay waxaad bixisaa lacagta aad ku shaqeyso 7.3% taasoo hadda isbitaal gashid dawooba kugu baxdo intay la egtahay qarashkaaga duu yahay wax lacag aad bixinaysid malahan tan kale xigta waxa way lacagta xanaaneynta ma aragtay waxa qofka laga gooyaa asagana hal dhibic hal 7 oo ah qofka yani qofka markuu duqoobo oo meel ma aragtay la geeyo guryahan dadka waayeelada lagu xanaaneeyo qofka adiga ma aragtay ku xanaaneynaya oo ma aragtay ku daryeelaya biilkiisii oo qaadan lahaa waa inaad hadda sii bixisaa taas marka aad shaqeysid waxa lacagtaada laga goynaya marka lacagtaada la isku wada daro 1.75% lacagta kale ah lacagta duqnimada oo asagana qofka laga gooyo waxay hadda tahay 9.35% qofka lacagta uu ku shaqeeyo lacagtan qofka laga gooyo wuxuu ku maalgeliyaa ama hadda la siisiyaa dadka maaragtay waayeelada ah ee hadda wadanka Jarmalka ku nool oo waxa la yiraahdaa Jarmalku waxay yiraahdaan generations vertrag taasoo macnaheedu ah heshiiskii jiilka hadda jooga wuxuu bixinayaa lacagtii dadka duqooshinka ee hadda nool dadka jiilka hadda ayagana lacagtan dadkii duqooshinka bixinaya ayagoo lacagtooda waxay ka heli doonaan jiilalka dambe ee imaan doona marka ay shaqeeyaan lacagta ayaga ay bixinayaan oo ma aragtay lacagtan caymiska duqnimada waxa ayagana la siinayaa
jiilka hadda lacagta bixinaya waa jiilka hadda jooga oo bixiya duqooshinka awaayeelada hadda lacagtooda ayagana hadda lacagtooda waxa bixin doona jiilka kala imanaya waxa la yiraahdaa marka heshiiskii jiilalka waxa kaloo qofka uu bixiya lacagta la yiraahdo lacagta caymiska shaqo la'aanta oo 1.5 ah qofka marka uu shaqeeyo waxa laga goonayaa lacagtiisa 1.5% oo ah marka uu shaqo la'aan noqdo lacagtii la siin lahaa markaasi hadda u sii diyaar garoobay waxa ka goosanayaan maaragtay dawladda waxay leeyihiin lacagta maadaama hadda aad shaqaysid waa laga gooyaa 1.5 markaasoo ay tahay hadii shaqo la'aan kugu dhacdo in hadhowdii la kabi doono noloshaada bixinta guryaha tusaale ahaan waxa ku noolaan lahayd iyo maaragtay qaabka shaqada ku heli lahayd oo lagu garab galo waana 1.5 hadda lacagtaasoo dhan qofka marka laga gooyo waxa oo soo haraysa lacag yar half way baxday waxa ku soo haray half lacagtaadii kamida marka saas loogo aragto warqadaada qaybta kale lacag badan ku qoran kadibna miinisyo badan la aragtid hala yaabin hadda wad ogtahay lacagtaada meesha aado marka lacagta aad ku shaqeyso dhan waxa la isku yiraahdaa bruto marka laga gooyo lacagyo hadda aan soo sheegnay sida caymiska jirada tan xanaanaynta tan maaragtay duqnimada iyo tan maaragtay caymiska shaqo la'aanta iyo midii hore midnimada Jarmalka ahayd marka waxaas oo isku daro waxa la isku yiraahdaa bruto marka waxaas laga gooyo lacagta adiga kaliya ee ku soo harta kontaada lagu soo diraa ayadana waxa la yiraahdaa netto waxa jira ayadana qofka maaragtay muhiim ah inuu ogaado wax la yiraahdo Lohnsteuer clause oo maaragtay qaybo kala duwan leh ilaa 6 gaaraya ugu horeyn لكن Lohnsteuer clause waxa uu bixinaynaa af Soomaali ahaan erey oo bixinaynaa waxa leenahay darajada canshuurta darajada canshuurta maaragtay oo lambar leh darajada canshuurta koobaad darajada canshuurta labaad darajada canshuurta saddexaad darajada canshuurta afraad darajada canshuurta shanaad darajada canshuurta lixaad saas oo kala bixinaynaa Lohnsteuer clause 1 2 3 4 5 6 ilaa hayd marka si aan af Soomaali maaragtay oo hormarino oo aad aan u jecel luqadeena hooyo waxaan ku hadli doonaa maaragtay ereyada wax fasiraynaa waxaan leenahay luqadeena maadaama wadankeena uu salahayn system noocana laakiin waxaan isku dayaynaa maaragtay erey anaga aan leenahay u sameeyno si aan maaragtay luqadeena meel walba u gasho darajada canshuurta koobaad waxa qaata qofka toobka maaragtay single-ka aanan xaasla ahayn waxaana ka gooda lacag aad u fara badan marka darajada canshuurta labaad ayadoo waxa qaata qofka soo guursaday oo maaragtay caruur haysta laakiin isla markaas aanan wax qof lamaana aan isla noolayn waa qof maaragtay la soo furay ama wax furay maaragtay wuxuu qaadanayaa darajada canshuurta labaad laakiin waxa qasaba inay maaragtay qofkaasi uu haysto caruur marka darajada kale saddexaad qofka waxa la siiyaa ama qaada qofka xaaslaha ah laakiin waxa ku xiran shardi ah qofka kale hadduu asaga shaqeeyo tusaale ahaan nin inaagis qaba ninka waxa la siiyay darajada canshuurta saddexaad xaasku waxay qaadanaysaa darajada canshuurta shanaad taasoo ah qofka darajada canshuurta saddexaad haysta waxa ka go'aysa lacag aad u yar qofka darajada canshuurta shanaad haystana waxa ka go'aysa lacag ka badan tan maaragtay qofka lamaanaha ula nool yahay ka go'aysa midda kale oo afraad ah darajada canshuurta afraad waa automatic qofka labada qof isqabta ba automatic loo siinaya laakiin waxay dooran karaan tii hore hadda aan soo sheegnay canshuurta darajada Lohnsteuer clause 3 5 uu ku bedelan karaa qofka Lohnsteuer class 4 iyo 5 ayagu waxay ku siiyaan dadka isqaba oo maaragtay waxay kala dooran karaan waxay leeyihiin kan hal siiya marka kan hal siiyo maaragtay waxaan leenahay 3 4 5 waa dadka maaragtay isqaba Lohnsteuer class oo 6 waa qofka laba shaqo isku haysta adoo shaqo haysta hada shaqo kala haysto shaqada labaad waxa la siinayaa Lohnsteuer clause 6 oo taas macnaheedu waa lacag aad u fara badan inay ka go'ayso marka uma qalanto in maaragtay qofka laba shaqo isku haysto aad bay u ilaaliyeen inuu qofka laba shaqo isku haysanin oo maal hal shaqo ku koobnaado maadaama qofka shaqo uu ka shaqeynaa asaga haysto waxay leeyihiin wax ku saaray cadaadis 6 bay ku siinayaan si lacag badan ka go'do aad tiraahdo okay uma qalanto maaragtay shaqadan u shaqeeyo
markaad intaan ku soo gabagabeynina laakiin waxa raaci doona 10 kale oo maartay fara badan oo xiiso leh